horta anidii warramo subscribe baad odhanaysaan channelkan horta Xuseen baa la dhaka weynaa Xuseen dhaka weyne markii saddex fariyarada uu dhigay adiga maxaa ka gaay subscribe ku dhadii soo gar ila liqa qoyska Cayshe Ilyas oo gabar ardayad ah oo 24kii Abriil lagu kufsaday magaalada Gaalkacyo kadibna la dilay ayaa ka guuray xaafadii ay ka degnaayeen magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhinaca waqooyi iyagoo u guuray degmada Goldoob ee gobolka Mudug qoyska ayaa sheegay in Gaalkacyo ay uga baxeen cadaalad daro iyagoo tilmaamay inaysan jirin hadal rasmi ah oo ay ka heleen madaxda maamulka Puntland tan iyo markii lagu dilay Cayshe Ilyas magaalada Gaalkacyo waxayna intaasi ay ku dareen inay la kulmeen hanjabaadyo kaga imaanayo dad ay sheegeen inay si kale u arkeen qaabku u socdo kiiska Cayshe Ilyas aabaha dhalay Cayshe Ilyas oo isagoo ku soo garow teleefankan kula hadlay ayaa sheegay in qoyskiisa ay naftooda ula carreen isla markaana waxa uu sheegay in dadka reer Gaalkacyo ay noqdeen kuwa daris xun sida uu hadalka u dhigay reerkii waa iska tagay aniguna garow waan joogaa naftoodeena la carreen waayo dad daris xun bay noqdeen dadkii reer meeshu deganaa waa ka guuray Gaalkacyo ahay daris xun inuu uga guuray marka xagee guureen Goldoob bay u guureen inkastoo maalmo ka hor hooyada Cayshe Ilyas ay sheegtay inaysan wali helin cadaaladii ay u baahneen haddana waxay ka codsatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in cadaaladda loo horkeeno dad ay sheegtay in loo qabtay kiiska gabadheeda guriga qoyska ay degnaayeen ayaa maanta waxa uu ahaa mid faaruq ah oo aan cidna aan joogin waxaana la arkayay buugaagtii Cayshe Ilyas oo iskuulka ay ku aadi jirtay oo banaanka yaala mid ka mid ah dadkii saaki tagay guriga ay ka guureen qoyska Cayshe Ilyas ayaa warbaahinta uga waramay wixii maanta ay ku arkeen guriga halkan waa gurigii gabadhii yareed ee Cayshe Ilyas dhibaatada ku dhacday ee dhawaan geeriyootay hooyadii iyo familkii iyo ehelkii halkan deganaa way ka guureen magaalada iyagoo tirsanaya cadaalad darro iyo in laamaha ammaanka iyo maxkamadaha Puntland ay sharcigii iyo cadaaladii ka waayeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa uu bayaaminaynaa in halkan dhibaatadii reerkan loo geystay aanay cidina ka hadal muddo 2 bilood iyo dheeri ah sida darteedna reerkii iyo hooyadii iyo familkii ay go'aansadeen inay Gaalkacyo iskaga guuraan si aanay dhibaato kale ayaga laftigooda uga soo gaarin bulshada Soomaaliyeed waxaan soo bandhigaynaa gurigii ay deganaayeen reerku gabadha yar ay ka baxday Allah u naxariistay waa kan waa cidlo waa guureen war been ma aha war sax ah oo jira oo caday oo dadku ay marxaati ka yihiin in dhibaatada halkan ka dhacday aan cidna wax ka qaban oo dawladda Puntland iyo laamaha ammaanka iyo maxkamaduhuba ay iska dawareejin iyo aanay war cad ka soo saarin Puntland guud ahaan dhibaatooyinka kufsiga ka dhaca dadka Soomaaliyeed ee gabdhaha ah loogu geysto dawladdu maxkamada ma saadhow dadka garbaharay baa kamid ahayd laba qof lagu tagto gabar kufsado dishay inkastoo ilaa hadda aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka Puntland oo ku aadan guuritaanka qoyska Cayshe Ilyas ee Gaalkacyo haddana shacabka reer Gaalkacyo ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay cadaalad la'aanta ay sheeganayaan qoyskan Soomaaliyeed Liban Cajiib Xaajiraad oo kulmiye Gaalkacyo